dafa no daha no na dafa وياها أصول ناخذ يا شيو نعم لها وتفوق saaxiibada qaaligan ugu xiran aad iyo aad baan idin salaaminaa meel kasta dunida daafeeda kaga sugantii salaam boqortiin hawadeedii soo marinaynaa saaxiibeel maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno heestii saamaysay dhammaan Soomaalida meel kasta dunida daafeeda kaga sugan yihiin heestaas oo ay soo saareen kooxda magacooda lagu magacaabo waayaha cusub oo la kulmay shacbiyad amba dad ka soo horjeeda heestooda heesto 5 saacadood taalay ayaa waxa saaray 50,000 oo dislike amba 50,000 oo qof ayaa diiday sababta heesta loo diidayna ma garan karno bal waxaan rabnaa inaad heesta in yar nala soo aragtiin saaxiibada qaaliga ah no daha no na dafa no daha no na dafa وياها أصول ناخذ يا شيو نعم لها وتفوضى روحي نبض وغيستو نحلبك النوشا إلا نار مويه تلا أما نقلاذان منا نحكوانو تتكدو ما نحيستان saaxiibadayda qaaliga ah wada maqlaysin heestana waad soo dhageysateen cidda looga jeedana way iska caddahay waxaana heesta u qaadin dawladda Soomaaliya iyagoo heesta meelna u soo gabo warkooguna uu iska cad yahay waxay ku dhaliilayaan gabiyahan dawladda Soomaaliya haddaba waxa ka xanaaqay amba ka soo jawaabay fanaanka la yiraahdo Ilka Casaqays iyo sidoo kale fanaanka Dayax Dalmurshe oo aad uga xanaaqeen daliil weyn ay ka muujiyeen in ay u soo qaadaan dawladda Soomaaliya oo ah dawlad iyadeedii iska dhibaataysan deedina waxaan ku leeyahay ay ka badan tahay shicibkeeduna iska dhibaataysan yahay ina maanta la isku diro shicibka iyo dawladina aad iyo aad bay uga xumaadeen labada fanaan waa Ilka Casaqays iyo fanaanka Dayax Dalmurshe haddaba heestan oo noqotay hees Soomaalida ka yaabisay hees cajiibana noqotay oo noqotay heestii Soomaali ugu dislike badnayd uguna waalnayd maadaama heesta magaceeda leeraa nabar iyo naxdin si kastay ahaataba dhammaan inka waxay qariyeen dislike ay saareen taageerayaasha amba shacabka Soomaaliyeed meel kasta kaga sugan yihiin dunida daafeeda shacabkaas oo ah shacab midaysan dalkooga iyo madaxdooda iyo dadkoogana aad iyo aad u jecel marnaba aan ogoleyn shacabkooga iyo dawladoodaba la dhaliilo si kastay ahaataba wixii warbixin ee ka imaada heesta waan la soo socodsiin doonaa dad maasantii saaxiibada qaaliga igu qaaliga ah waxaan leeyahay mac salaama aad iyo aad baan idin salaamaya sharaf iyo barwaaqo